بسم الله الرحمن الرحيم وحمالتي لباد قلي انت يا ترى وحمالتي لباد صعده kala fadhiga golaha dhexe ee jawxo ama ONLF waxa maanta laga dooray qodobo muhiim ah oo ay kamid yihiin qiimeynta xaaladda ururka iyo waxqabadka hogaaminta iyo istiraatiijiyadda ururka iyo marxaladdan tada lagu jiro waqtigan kala xaadirka ah xubnaha golaha dhexe iyagoo waajibaadkooda gudanaya waxay si fiican u qaadaadhigeen qodobadii la soo hordhigay iyaga oo tilmaamay dhibaatooyinka jira iyo qaababka looga bixi karo dhibaatadaas golaha dhexe wuxuu xoojiyey inuuna ururku waxba ka bedelin mowqifkiisii ku aadanaa heshiiskii nabadeed ee 2018 dhex maray ururka ONLF iyo dowladda Itoobiya ururku wuxuu aaminsan yahay in heshiiskaasi uu horseeday nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaanka Soomaalida sida daradeed loo baahan yahay in la sii xoojiyo goluhu isagoo cuskanaya shuruucda ururka u yaala wuxuu mudane Abdirahman Mahdi ka qaaday xilkii guddoomiyenimo maanta oo taariikhdu tahay 9 bishii Afraad 2025 waxaan xilkii guddoomiyenimo si ku-meelgaadha loogu wareejiyey Abdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo xilka hayn doona inta ururku ka qabsan doono shirweyne mudane Abdirahman Mahdi ayaa loo cuskaday qodobo tilmaamaya xil gudasho la'aan ku xadgudubka go'aamadii ururka oo si gaar ah u qaatay iyo halisgelinta nabadda iyo xasiloonida guud ahaan iyo nolosha iyo amniga xubnihii ururka kadib markii isagoo keligii ah uu dagaal ku dhawaaqay kala fadhigu wuu sii socon doonaa wuxuuna soo saari doonaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan go'aamada laga soo saarayo kala fadhiga golaha dhexe ee ururka ONLF kala fadhigu wuu sii socon doonaa wuxuuna soo saari doonaa warbixin faahfaahsan oo ku saabsan go'aamada kala fadhiga ka soo baxa ururku wuxuu mar dhow soo saari doonaa bayaan la xiriira xilka qaadista guddoomiyihii hore ee ururka ONLF mudane Abdirahman Mahdi wa salaamantiin. The second day of the Central Committee sessions on ONLF is currently underway. Today's discussion focused on the critical topic including the evaluation of organization's current situation and the performance of leadership, as well as the strategy of the organization will follow on the second phase. Members of the Central Committee, while fulfilling the responsibility through discussions on presenting agenda items, highlighting the existing challenge and propagation to overcome this. The Central Committee reaffirmed that the organization has not changed its stance regarding 2018 peace agreement between the organization and the Ethiopian government. The organization believes that this agreement laid the foundations for peace and stability in Somali region and emphasized the need to further strengthen it. The Central Committee also reached a decision today regarding the former chairman of the organization, Mr. Abdirahman Mahdi, following an investigation that confirmed he had violated the organization's regulation and the law governing political parties in the country. Based on the internal regulations of the organization, the Central Committee has officially removed Mr. Abdirahman Mahdi from the chairmanship as today, April 9th, 2015. The position has been temporarily handed over the deputy chairman, Mr. Abdikarim Sheikh Muse, who will serve an acting capacity until the organization General Congress is convened. Mr. Abdirahman Mahdi was found to have failed in exercising his duty, breached the organization's decision-making process, and encountered the overall peace, stability, and safety of the member and the public. He unilaterally declares a conflict and investigation without discussion with its member. The decisions will continue and the comprehensive report will be issued regarding the resolutions processed during this meeting. The organization will soon release an official statement regarding the dismissal of its former chairman and the new coming of acting. Thank you.